afhayeenka al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere oo soo duubay fariin maqalo oo soconaysa 26 daqiiqo in caruurtu ay aadi karaan iskuulada lagu barto manaahiijta carabiga oo kaliya maadaama kuwa kale aysan wanaagsanayn waxa uu uga digay cid kasta oo ka qayb qaadata ama faafisa waxbarashada reer galbeedka inay la kulmi doonaan cawaaqib aan wanaagsanayn waxaan uga digayaa daladaha ururada muassasada iyo shakhsiyaadka ku howlan fulinta ajendayaasha reer galbeedka iyo sidoo kale kuwa iyaga raacsan inay ka waantoobaan hawshaas ayna joojiyaan manaahiijta qaloocan ee u adeegaysa rabitaanka reer galbeedka ayna ogaadaan in hawsha ay ku jiraan ay tahay garabsiin ay gaalada ku garabsiinayaan gaalaysiinta ubadka muslimiinta taasina ay ka dhalanayso in diinta laga baxo waa haddii ay muslim ahaayeen haddii ay ogaal gaalada ku garabsiinayaan ha ogaadaano inay dagaal kula jiraan muslimiinta ayna waxba ka duwanayn kuwa soo duulay dadka muslimiintaana ha ogaadaano in ciddii iyagoo hawshaasi ku jira ay wax ku soo gaarta aan la dulmin balse iyadoo dagaal cad ay gashay ayuu yidhi علي محمود راجع على دار أفينك أورك الشباب على دار يا فرتكو في قي إسكولية جامعة وشاقي إن لقوفها في تعليم ترى قلبات كقواسه والتلمامي إن أبط كأي كلا دجالمان دين توده إسلام كان يفافيان لقنا ذا قلبات على مدها لقوا يقانو إسكولة إيه جامعة وحكم إذا وحي كود ذلان لقدها أجنبية وحين الله دجالمان لقد عربية سببته دين إسلامك واللقد النبينا وانا لغه كتابكينا ugu dambeeyna waa luqada ahlu jannaha sidaas darteed ayna muslimiinta looga fogeynaya luqadaha ajaanibtana loo jeclaysiinaya wax kasta oo marmarsiyo looga dhigtaba ayuu yiri cali dheere hadalkan ka soo yeeray afhayeenka al-shabaab ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadyo ka hor al-shabaab ay soo saartay manaahij cusub oo luqada carabiga ku qoran kaas oo loogu talagalay iskuulada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala deegaanada ay shabaabku maamulaan hase yeeshee lama oga sida uu u saameyn doono amarkan ka soo baxay al-shabaab iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala wadanka gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo wax ku dhiga luqadda Ingiriiska Axmed Saciid Axmed telefishinka Honkebal magaalada Muqdisho